اوكي ميكروفوني waan xidhay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel kastoo caalamka joogtiin waan salaamay. maanta waxaan hayaa qiso jadiida oo ku socota ka hadlaysa in la dhaho Tyler Perry. haddaba Tyler Perry waa kuma waxa weeyaan wiil Mareykan ee jinsiyadiisu tahay madow. wuxuu degan yahay magaalada deganaa waan iloobay. calaa kulli xaal wiilkan wuxuu ku noolaa nolol runtii aad iyo aad u adag. noloshiisaasi yani ahmidiisu waxay inuu ka baxo noloshan ku jiro. bayid wuxuu ku noolaa oo aabihii aad iyo aad wuxuu ku xumaa isaga xaafadiisa ku xumaa. Soomaalin walba wuxuu ka fikiri jiray sidee baan uga baxaa arrinkan. muu hayn qof tacliin sare dhigtay, muu hayn qof maal haysta. wuxuu galayay meel runtii dad faqiirada iska galaan, dad aduu dhexdhexaada iyo faqiir isku jaraba. wiilkaasi waxbuu xiisan jiray, wax la qoro xiisan jiray, wax la matalo waxyaalahaas uu xiisan jiray. marka maanta qisadani waxay ka turjumaysaa muhiimadda ay leedahay qofku hadduuna tacliin badan lahayn. sorry telefoon baa iga soo dhex galay. xageen socdi meelaan socdo ma garanayo. anyway maanta dibadaan fadhiyaa waxa weeyaan wahwo macaan. waxaan soo dhex gelinayaa runtii salaadul fajrka inta ka dambaysa xikmadda ku jirta qofka hadduu fahansan yahay runtii noloshiisa waxaan maleynayaa waxbuu fahmi lahaa. waa waqti loogu talagalay inaad adigu concentration isku samaysid, inaad adigu waqti aad la qaadatid calashaan connection aad la yeelatid allah subxaana watacaala. salaadan ka bacdii markaad sidaa u tukatid ilaa iyo ay xaafadu soo toosayso, ciyaalku soo toosayaan ama aad ziyaaranaysiin, waqtigaa waa inaad adigu ka faa'iidaysatid si aad ilaahay ugu dhawaatid, dikriga badisid, noloshaada oo dhan wixii aad haysatid waxaanad haysanba alxamdulilah aad runtii meditation iyo gratitude badan aad samaysid ayaa loo baahan yahay. anigu waan ka faa'iidaysanayaa imika waa la hurdaa wali lama soo toosin. aniguna imika waxaan ka faa'iidaysanayaa khaasatan aan videogan nii sameeyo si aan qisadan niiga sheekeeyo, waayo laga yaaba inay noloshiina bedesho. kuna dadaala insha allah haddaad salaada tukatiinna markaaba hurdada idan ku noqone inaad waxyaalo qabsatiin, amba dikri ha noqoto amba mooyaan amba shaqo kuu taali ha noqoto. markaad tukatid dib hurdada ugu noqon ee diyaari maanta programkaadaad qaban lahayd saaka. waxa weeyaan waqti baad u baahan tahay, waayo hadhow tolo waqtigaagii oo dhan dad baad ku bixinaysaa. xaafadii baad ku bixin amba hooyo amba aabo amba ciyaalkii amba shaqadii. waqtigaagii oo dhan meel kalaad u hortay. laakiin waxaa jira waqtiyo adiga gooni kuu ah. so intaad ka faa'iidaysan karaysid ka faa'iidayso si aad energy u hesho, si aad noloshaada dee aad u habayso mar walba. wixii ka dhimanna aad isku daydo sidee baan wax ugu dari lahaa, wixii ka siiyana aad ka fikiri lahayd sidee baan waxan xun amba waxan dhibaatada ii keenaya uga bixi lahaa. yacni waa waqtiyo runtii aad iyo aad muhiim oo qaaliya laakiin aynan u fahansanayn badanka. marka taa haddaan ka baxo, Tyler Perry waxa weeyaan waa wiil Mareykan. waa wiil ku dhashay runtii magaaladii waan iloobay, laakiin wuxuu ku dhashay meel dad faqiir iyo dad dhexdhexaad ay ku nool yihiin. wuxuu doonay runtii nolosha uu ku jiro inuu ka baxo. wuxuu ku jiray nolol aad iyo aad u adag. wuxuu haystay aabbo iska dhib badan, hooyadii dhibay, isaga dhibay, aqalkii dhibay. wuxuu rabay inuu bayadan buuqan inuu ka baxo. Tyler Perry ma aha nin wax bartay, tacliin sidaas male, muxuuha lacag male, laakiin isagu hamigiisa waxaa weligiiba inuu noqdo nin actora amba nimankan filmada soo saara amba nimankan tiyaatarada sameeya majaajilooyinka. inkastoo horta intuuna filmada u tallaabin majaajilooyinka iyo riwaayadaha waxaa aad u xiisan jiray. xoog buu daawan jiray waxyaalaha. markaa noloshiisa wuxuu isweydiiyey halkeen ka bilaabi karaa. tacliin sare ma haysatid, ninka madow baa tahay oo ogtiin Mareykanka nolosha dadka madowga ay ku nool yihiin inay aad u liidato intii lacag haysata mooyaane sidee baad wax u bilaabi kartaa. haddaba ninkani wuxuu ka bilaabay inuu horta bal shaqo helo. shaqadii baa ku adkaatay, laakiin wuxuu helay inuu buildingyada dhaadheer ee Mareykanka ku yaala inuu habeenkii soo masaxo. inagu waxyaalaha waan ka xishoonnaa, waan iska saraysiinaa shaqooyinka caynkaasa.
waxaan soranaa maaha shaqo igu haboon laakiin waa shaqo lacag leh shaqo waa ka shaqo isagu waxa la weyneed hamigan iyo waxaan sugayaa la weynaa wuxuu rabay inuu beeyadan dhibaatada badan uu ka baxo wuxuu rabay inuu qof noqdo wuxuu rabay inuu berito lacag yeesho xaas yeesho noloshiisa wato taaba la weyneed marka shaqooyinkan adag iyo waxaan la masaxay waxba lama ahayn waxa sugayaa la weynaa marka wuxuu sameyn jiray habeenkii buu gali jiray la subaxda uu soo masaxi jiray meesha lacag yar buu urursaday lacagtii urursaday waxa dhacday in uu doono inuu majaajilo sameeyo meelihii majaajilooyinka lagu sameynayay waa la soo diidaa kolba waa la soo diidaa marka ninkan wuu fikiro wuxuu yiri sidee baad isku bedeli kartaa buu yiri maxaad qabsan kartaa wuxuu bilaabay inuu jirkiisa dhiso ma ogtahay sidan lagu arkayo habkan lagu arkayo inaad dhistid inaad labistid inaad jirkaaga dhistid inaad aqligaaga dhistid ciyaar maaha albaabo badan buu ku furi karaa soo ninka wuxuu bilaabay inuu jirkiisa dhiso sports buu sameyn jiray jirkan buu dhisay habkii uu hadlayay buu bedelay dhaqankiisii buu bedelay habeenkii hore uu seexanayay yacni waxyaalo badan buu noloshiisa ka bedelay iska raali noqda waxaa haleeron asxaab la nahayba ayaa meelahan durduurasa soo wuxuu sameeyay wuxuu bedelay sidii habkii maxayd iyo dhaqankiisii wax walba cuntadiisii buu bedelay sports buu bilaabay inuu sameeyo step by step ninkii qurux badan buu noqday adiguba iska soo qaad dariiqa markaad socotid hadduu qof liita oo maxaydayay iska dee faqiira intuu kuu yimaado alxamdulilah dee dad raxmad leedahay wax yar baad gacanta ugu ridi laakiin badii biniaadanku haddaad degdegaysid gaadhigaagaad ku boodi waad iska socon laakiin qof qurux badan oo muraayado xiran oo labisan oo cajiiba hadduu kuu imaado aragtid inuu kugu soo socdo dee qofkan waad u joogsan waxaa saran hey qofkan qof sare uu eegayahay tolo meesha muu ku halaabay dog biniaadankaa sidaasa marka waxaan apparonskan marka biniaadanka ayaa sidaas qof hadaad aragtid meelaha socsocda oo iska qurux badan iska hab qurux badan waad u joogsanaysaa aduu calaa kulli xaal dhaqankiisii buu bedelay siduu labisanay buu bedelay jirkiisii buu dhisay wuxuu bilaabay in uu indhaha dadka soo jiito lacagtii habeenkii meelaha soo masaxayay biirooyada iyo bildingyadana lacagtiina wuu haystaa markaad qofka wax soo weydiisanaysid weel maran loo lama tago waa inaad tustid inaad wax haysatid marka wuxuu is weydiiyey siyaabaha loo diidan yahay in hoolalkan uu ku sameyn lahaa mujaajilada loogu diido maxaa dhacay soo wuu isweydiiyey wuu soo ogaaday ileen waxaa loo baahay inaad wax yar weelka ku sidatid markaad qof wax soo weydiisanaysid dadkani meesha way ku sii amaahin karaan oo hadhow markay dadku kuu soo galaan ayaad wada bixin lacagta laakiin waa inaad waxuun sii dhiibtid laakiin weel maran haddaad dadkii ula tagtid waxba kuma siinayaan wuxuu sameeyey lacag buu qoladii ula tagay meeshii yaa laga kareeyey dad badan baa usoo galay runtii waayo wuu isxayeysiiyey meelahaas metrooyadu la joogsan jiray flyero wuxuu run jirta ka ruwaayada baan dhigayaa ii imaada isaga laftigiisu wuxuu bilaabay inuu meelo ruwaayado laga soo sameeyo inuu sameeyo halkaa buu horta ka bilaabay uu magac yar ku yeesho dadkii ruwaayadahan daawanayay baa arkay ninkan quruxda badan leh dheer si fiican u hadlaya si fiican wax u matalaya halkiibu dadka flyerada siin jiray iyo adreeskiisa iyo magaciisa iyo waxyaalaha hadhow tolana metrooyada iyo meelaha buu dadka siis aduu dadkii buu isbaray markii dambe ruwaayadiisii buu qoray markii dambe waa loo yimiday markii dambe lacag aad iyo aad u badan buu ururiyey lacagtii uu ururiyey wuxuu ka fikiray inuu haddana ruwaayad kale ku sameeyo runtii ma ogtahay markaad success in yar gaadhid waxaa dhici karta in haddana dhulka kusoo dhacdid inankii lacagtii baa ka dhammaatay wuxuu ku soo noqday inuu accountkiisa uu ka waayo waxba bilaa lacag buu kusoo dhacay haddana sidiibu haddana dib meeshii uga bilaabay wax marka waxaa dhacday in uu markuu dadaalay ugu dambeyntii haddana ruwaayad kale uu sameeyey ruwaayadii lacag buu taabtay lacagta ruwaayadda maalinta uu sameeyey wuxuu mujaajilo ku qabtay inaad naqasheen mooyaane karakter uu bixiyey madiya waxa weeyaan waa islaam buu iska dhigaa qof dumaroo weyn oo sidii comediga ah madiya waa laga helay waayo waxay ka hadashaa madiya dhibaatada ka jirta maraykanka
madowga lagu hayo wax qosol ay raacaysaa dadkan laga dilayo madowga ciyaalkan communityga madowga sida loo dayacay iskooladay ka harayaan drugska iibinayaan waxaa buu soo dhex gelin jiray marka runta xaqiiqda laga sameeyo majaajilada waxaana dadka aad buu soo jeedataa tii lacag badan buu ka helay majaajiladii baa filin isku bedeshay filinkiibuu mid ma ahay laba ma ahay saddex ma ahay imise soo saaray marka qisada Tyler Perry way iska kooban tahay saama sii dheera laakiin ninkani wuxuu soo maray malxadlo aad iyo aad u adag taasoo ka turjumaysa maanta markaad dhibaato ku jirtid inaad dhibaatadan ka bixi karto inaanad maalin walba ku jiri karayn uu isagu dan uu gartay naftiisa iyo nafta hooyadii iyo nafta xaafadiisa inuu ka badbaadiyo aabahan dhibaatada badan leh dhibta ku haya cayda ku haya dilka ku haya afxumada ku haya inuu ka saaro beeyadan hooyadii isagaba way ka baxaan meeshan midda labaad wuxuu ku dadaalay inuu naftiisa wax ka bedelo wuxuu yiri maalin kaste xaafadaha dhex meerayso meelaha fadhi dankuma aha marka naftaada wax ka bedel wuxuu ka fikiray haddana okay Mareykan baa joogta Mareykanka moogtiin dadka cadaankuna qaar faqiir uu jira laakiin haddana marka la isku eego madowga iyo aad u liita dadka ajnabiga ay madowga ajnabi kan oo dhibaataysan way jiraan laakiin mooyaane istoriyada akhrisatiin madowga aad bay u dhiban yihiin lagu xidha adigoo madow oo wadankaaga jooga oo lagu leeyahay okay American dream baa jira wuxuu yiri Mareykanka moogtiin nolosheedu waxa weeyaan American dream baa jira yes wuu jira laakiin adigu isdabar maaha waxad meelaha ku yalyala lacag laguma siinayo dhakhtarkii ku agtagtay dadkii wax bilaash ma jiraan xaafadaha qaarkood Mareykanka waxaba dhaama noloshooda iyo systemkooga Afrika magaalooyin kamida ayaaba dhaantaba adigu wuxuu yiri okay everything is possible buu Mareykanka American dream baa jira dreamka soo gaari kara waan anigu isdabaro waan anigu wax la soo baxo doogninkani wuxuu ka bilaabay horta wuxuu garanayay xoog buu hayay caafimaad buu hayay inuu nadaafad ka soo shaqeeyo lacag buu urursaday muxuu garanayay kale inuu isagoon iskool u galin haddana majaajilooyinka ciyaar way waxaad passion u haysid waad sameynaysaa adigoon iskool u galin adaaba isbarayaba soo wuxuu ka bilaabay inuu horta ruwaayado soo matalo lacag buu ka qabtay ruwaayadihii lacagtu ka qabtay iyo nadaafadu ka shaqeynayay ayuu gartay maanta inuu waakii majaajilada doonayay inuu soo saare inuu history qoro majaajilo uu soo saaro dadna u yeedho muxuu qabtay horta intaanu dadka u yeedhin wuxuu qabtay inuu follow galo calashaan inuu shaqo iyo action sameeyo si uu horta dadka u soo gali lahaa ruwaayada uu u soo helo weligiin ha ku dhaqaaqina wax hadeedan u diyaarsanayn publicii amba dadkii ka iibsan lahaa amba dadkii ku iman lahaa adoon diyaarsan weligaa ha ku dhaqaaqin waxaad rabtid inaad samaysid ha ku dhaqaaqin marka isagu wuxuu yiri haddaad ruwaayad waan sameynayaa tiraahdid adaa ku khasaare bal horta dadkii kuu soo gali lahaa soo doondoon dadka isbar marka wuxuu ka bilaabay inuu ruwaayado soo matalo dadkii daawanayay marka wuxuu doonayay si uu dadkii daawan lahaa isaga ay u noqon lahaa macaamiil amba u noqon lahaa difaan u yeelan lahaa inuu horta soo helo muxuu ka bilaabay inuu majaajilooyin soo matalo halkaabuu ka helay dadkii markii dambe muxuu sameeyay ruwaayadiisii buu samaystay markuu ruwaayadiisii samaystay maxaa ku xigay in dad u yimaadaan inuu halka lacag badan ka helo markii dambe filimuu soo saaray lacaga ka soo baxay ninkii sidaa buu caan ku noqday maanta waxa weeyaan ragga madow ee ugu lacagta badan la Mareykanka Tyler Perry maanta Mareykanka wuxuu ka taagan yahay top of the top wuxuu taagan yahay qof from nothing to something ku soo baxay American dreamna wuxuu yahay dadka wuu tusay inay jirto buu tusay laakiin waxa loo baahan yahay shaqo inaad qabatid naftaada ka qabatid maxaydaad waxyaalo badan naftaada ka bedeshid dadaal bay u baahan tahay waxa jira markaad heer haybaysanaysid waxyaalaha naga xishoon nadaafadii baa jirta waxa jirta inaad dadkii u tagtid oo tiraadid isbirtid waa kan project maan wataa san wayaan waa inaad markaad dream leedahay ayna waxba ku joojin dadka critique ugu sameynayaanba ku dacaydeynaya ha u joojinin waayo adiga waxa ku sugaya waxaanad hadhow toole aad ka dhiganaysid shaqadaadii aad ka dhiganaysid waxaad ku noolaatid aad ka dhiganaysid aad happy ku noqonaysid baa ku sugaya marka laba eray iyo laba kelmadood iyo laba qof oo ku joojiya waqtigaaga ha ku luminay hore u soco
Tyler Perry maanta wuxuu ka mid yahay nimankan oran karno top of the top buu ka yahay Mareykanka waa nimanka dadka calashaan hadda laga hadlo Afro American dadka madmadow number 1 tobanka u hore uu ku jiraa so waxa weeyaan qof saanimika sheegay ka soo baxay from nothing to something marka ninkaasi maanta waa rag ugu caansan Mareykanka iyo caalamkaba waa rag ugu lacagta badan leh dhawaan wuxuu guursaday gabadh wuxuu guursaday Ethiopiana Ethiopia xagga Mareykanka ka shaqeysato dumarka dharka xayisiya marka saasuu ku xaasaystay saasuu ku lacageystay Tyler Perry qisadiisa kulay waad orki doontii maanu malayn markaad hamil leedihiin wax doonaysiin inaad qabatiin waxaan leeyahay dadka ha u joojinina fikirkiina intay doonaysaa kugu qaadatee aka hadhin hadduu yahay wax runtii noloshaada bedelaya bulshada bedeli kara wax fiican oo keeni kara adiga wax ku fiican ku keeni kara hadday tahay ha ka hadhin insha Allah waxaan rajaynayaa guul How did I end up falling for you? I find myself caught